kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah Amisom oo baartay hoolka lagu dooranayo xildhibaanada golaha shacabka ee ka imaanaya Hirshabelle wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan hay'adaha ammaanka dawladda Soomaaliya oo ganacsatada suuqa Bakaaraha ku amray inay dib u furaan ganacsiyadooda wasiirka warfaafinta Somaliland oo mucaaradka ku eedeeyay kicinta dadka sidoo kale warka waxaad kaga bogan doontaan maamulka degmada Kaaraan oo ka hadlay khasaaraha qaraxii la eegtay taliya Caraale qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay Amisom ayaa baartay hoolka lagu dooranayo xildhibaanada golaha shacabka ee Hirshabelle matalaya ciidamada militariga ah ee howlgalka nabadilaalinta midowga Afrika ee Amisom ee Soomaaliya ayaa baaris ku sameeyay hoolka dowlad goboleedka Hirshabelle ay ugu talagashay in ay ku qabato doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee matalaya dowlad goboleedkaasi doorashadan waxa ay Hirshabelle ka dhigaysaa dowlad goboleedkii ugu dambeeyay ee doorta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad sidoo kale waa mudanayaashii ugu horeeyay doorashadooda uu qabtay dowlad goboleedkaasi ciidamada Amisom ka tirsan ayaa si feejigan u baaray kuraasta la dhigay goobta doorashada agabka gudaha yaala qolalka loo dhisay in ay galaan dadka codeynaya iyo dhismaha guud ee hoolkaasi markaasi ay u baaraan haddii la geliyay walxaha qarxa amaba amniga wax lid ku ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada midowga Afrika ee u dhashay dalka Burundi ayaa sheegay in mas'uuliyadda saaran ay tahay la shaqeynta booliska federaalka dowlad goboleedyada iyo waliba ka warqabka goobaha doorashada dalka Amisom ayaa 25 sarkaal u tababartay ka shaqeynta nabadgelyada doorashooyinka Soomaaliya sidoo kale waxa ay tababarkaasi la qaateen saraakiil Soomaali ah oo la tusiyay sida loo ilaaliyo goobaha doorashada 31 Janaayo 2022 Jowhar waxaa lagu wadaa in lagu doorto kuraastii ugu horeysay xildhibaanada golaha shacabka ee dhanka Hirshabelle ka soo galaya baarlamaanka 11aad ee federaalka Soomaaliya ciidamada Amisom waxa ay howlgallo kala duwan oo baaritaan ahi ka sameeyeen hoolka loo diyaariyay in lagu qabto doorashada xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi Hirshabelle ka soo galaya iyadoo lagu wado in la qabto doorashada kuraasta ugu horeysay ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya oo Hirshabelle ku matali doona 4 sano ee soo aadan dhinaca kalena hay'adaha ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ganacsatada suuqa Bakaaraha waxa ay ku amreen inay dib u furaan ganacsiyadooda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ganacsatada ku dhaqan suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha ku amartay in la furo suuqa oo cabsi Daacish ay u xireen ilaa Arbacadii la soo dhaafay sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ku sugan halkaasi qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha waxa ay sheegeen in hay'adaha ammaanka ay bixiyeen amarkaasi iyadoo lagu hanjabay in la jebin doono albaabkii xiran sida ay tilmaameen arrintan ayaa sida ay sheegeen ganacsatada waxa ay u muuqataa in ganacsatadu ay dhaxda ay ugu jiraan xilligan arrin adag oo khatar ah maadaama dowladda federaalka Soomaaliya oo aan damaanad qaadi karin sida ay hadalku u dhigeen amnigooda xilligan ay ku amrayaan in goobahooda ganacsi dib ay u furaan amarkii ka soo baxay hay'adaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii la soo dhaafay suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha u xirnaa cabsi laga qabo kooxda Daacish taasi oo ay ganacsatada kaga dalbadeen sida ay tilmaameen lacag aad u fara badan kuwaasi oo sida ay sheegeen ganacsatadu aysan awoodin bixinta lacagahaasi xilligan suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha ayaa noloshiisa waxa ku tiirsan dad fara badan oo u dukaamaysi doonta halkaasi sidoo kalena ganacsato ayaa sanadihii ugu dambeeyay halkaasi ka sameynayay ganacsiyo kala duwan iyadoona dadka ugu badan ee xilligan tilmaameen in ganacsiyadooda ay ku tiirsanayeen qoysas fara badan oo ay ka maareyn jireen nolosha qoysaskaasi sida ay tilmaameen dhanka kalena wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa waxa uu mucaaradka ku eedeeyay kicinta dadka wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa mucaaradka Somaliland ku eedeeyay inay kicinayaan dadka iyagoo markaasi dood ka dhigtay wax qabad la'aan dhanka xukuumadda miisaaniyadda iyo doorashada Somaliland
Koore waxa uu meesha ka saaray dhaliisha mucaaradka ka imaanaysa, balse cidda doonaysa in markaasi ay ka qanacdo jiritaanka eedeymahaasi xaqiiqdeeda ka daba tegi karto, sida uu hadalka u dhigay wasiirka warfaafinta Somaliland. Saleema Yuusuf Koore, wasiirka warfaafinta Somaliland, ayaa si dadban u weeraray hoggaanka xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo UCID oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyay waxqabad la'aan iyo weliba dib u dhigista doorashada Somaliland. Qofka muwaadinka ah been looma sheego. Wax aan qaban ma dhihin waan qabanay. Meeshii aan wax loo qaban maanta berri ayaa loo qabanayaa. Dadka beenta sheega ma ahan in markaasi ay iska gambadaan xaqiiqda miisaaniyadda oo meel waliba taala, ayuu yiri wasiir Koore. Wasiirka warfaafinta Somaliland Koore ayaa intaas ku sii daray in kaalmada caalamiga ah lagu howlan yahay si loo fuliyo mashaariic kala duwan oo waxtar u leh deegaanada Somaliland, sida uu hadalku u dhigay. Hoggaanka sare ee xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, Wadani iyo UCID ayaa waxa ay ka digeen in muddo kororsi uu xilligan uu aado xisbiga talada haya ee Kulmiye, maadaama uu ka cagajiidayo qabsoomidda doorashooyinka, sida ay hadalku u dhigeen. Waxaana sidoo kaleeto ay tilmaameen mas'uuliyiinta u hadashay xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo UCID in xilliga madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku howlan yahay sidii uu u daahin lahaa doorashooyin in laga qabto deegaanada Somaliland. Waxaana sidoo kaleeto xilligan ay tilmaameen xubnaha mucaaradka xisbiyada Wadani iyo UCID u hadlay in hoggaanka sare ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi xilligan uusan doonin in lacagihii loogu talagalay dhanka doorashooyinka iyo guddiyada doorashooyinka waxyaabihii agabka ahaa oo ay ku howlgali lahaayeen in xilligan gaabis xoogan uu ka muujinayo, taasina uu kaga goon leeyahay, sida ay hadalku dhigeen, in uu si weyn u daahiyo doorashooyinka la filayay inay ka dhacaan deegaanada Somaliland. Xisbiga talada haya ee Kulmiye ee Somaliland xilligan waxaa la tilmaamayaa in cabsi xoogan uu kala kulmayo xisbiyada kale dhigiisa ah oo la sheegayo in si weyn xilligan ay taageero buuxda ay kaga haystaan shacabka ku dhaqan Somaliland. Dhanka kalena, maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay khasaaraha qaraxii lala eegtay taliyaha saldhigga Kaaraan. Gudoomiyaha maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan, ayaa ka hadlay qarax barqanimadii maanta gudaha degmada Kaaraan lagula eegtay taliyaha saldhigga booliska degmadaasi, Gaashaanle Salaad Caraale, oo saarnaa gaari boolis ah. Gudoomiye Abshir Kaaraan oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in qaraxa lala eegtay taliya Salaad Caraale uu ahaa miino nooca dhulka la geliyay, isla markaana gaariga taliyaha iyo ciidankii la socday uu ku qabsaday waaxda Jamhuuriya, meel aan sidaasi kaga fogeyn masaajidka Turkida. Waxa uu sheegay gudoomiyaha Kaaraan in qaraxa uu ka dhashay khasaaro dhaawacyo ah oo soo gaaray askarta ilaaladu ee taliyaha saldhigga Kaaraan iyo dad shacab ah oo waxyeello ay ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay qaraxyo dhaliyay khasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed, iyo sidoo kale dilal qorsheysan oo ay geysanayaan rag bistoolado ku hubeysan. Guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. waana ku mahadsantihiin daawashada wararkeena ee nabadgelyo.